السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وحين وضع لي رمضان كريم إن شاء الله تعالى سيدة عوان كسربا كسو أركتين وحينو كجهد لدونا برنامج كينا كجنا فعلان دونا فكرة ده قلدن إنه كامن عصرك يومان تدن للشوغا ماشي كتاغن تدينتو إن مدينة يهبلهيني إن شاء الله تعالى لبضا بقار أيينو مدبا وبربرليك دونا ككاليتو. haddaynu u gudagalno maanta haddaba barnaamijkeena kuna horeyno dhanka hablaha waxaynu dhammaanteen ogsoonnahay in hablaheeni badankoodii ay ka tageen xijaabkii iyo asturnaantii ay diinta suubani faraysay sababteeduna ay tahay casrigan la joogo oo ay u qaateen in xijaab la xidhaa ay tahay waqti hore iyo dad horanimo taasina waa khalad ayay nagu tahay haddaynu dad islaam ah nahay taa beddelkeedina waxay ku beddesheen dhar aynan asal ahaan diin ahaan dhaqan ahaan midna aynan u lahayn ee ay soo samaysteen dumarka gaalada iyo waddamada gaalada lagu soo sameeyey subxaan allah balse hablahaas ka tegay xijaabkii iyo asturnaantii waxay moogeen oo ay ilaaween aayaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku salli xabiibkeena lagu soo dejiyey ee ahayd nebi maxamedow ku dheh dumarkaaga dumarka mu'miniinta hablahaaga ku sii daaya korkiina jalaabiibka kaas ayaa idin wanaagsan haddii aad garanaysaane ilaahayna waa mid dembi dhaafo ah sidoo kale ilaahay waa mid aad iyo aad u naxariis badan halkaasi waxaynu ka fahmaynaa gabadh kasta oo qaadata amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay gelayso maganta ilaahay marnaba aanay arki doonin wax dhib ah haddaba inan kasta oo walaashay waxaan farayaa fariintaydan u dhaganuglow aadna u dhagayso una dhuux fariintan aan ku leeyahay waxa weeye ha moodin casri inaad ka tagto xijaabkii iyo asturnaantii oo aad qaadato dhar aan la garanaynin subxaan allah haddaynu halkaa kusoo gabagabayno dhankii hablaha una galno dhankii inamada anigu shakhsi ahaan horta garan maayo meel kale oo ay aad diintii hoos uga dhigmeen xagga inamada oo aan ahayn tima jaristii dhammaan inamadeenna waddankeena jooga kuwooda ugu badan waxay noqdeen dhanxiir balse taasi uu nahyiyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi timihiina sima taa miyaynu ilowna markaynu dheegaga xiirayno waxayna u xiirataa dhalinyarada maanta joogta sidan aad shaashada ku arkaysaan iyo weliba si kasii daran taasina waa inagu ceeb iyo lid iyo hoos u dhac haddaynu nahay dad ilaahay islaam ka dhigay iska daa in dheegagii la xiiree waxaynu maanta maraynaa casri jaahili ah oo aan lagu tilmaami karayn casriye ay raggii timihii dabanayaan rasuulku muu nahyiyin in timaha lala baxo balse wuxuu nahyiyey oo uu diiday dhammaanna uu inaga reebay haddaynu dad ilaahay islaam ah oo rag ah inaga dhigay inaynu intaynu timaha la baxno aynu dabno taasi waa inagu khalad haddaynu islaam nahay haddaba wiil kasta oo walaalkay ah waxaan farayaa in aanu casri moodin inuu ka soo horjeesto amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kii ilaahayba subxaanahu wa tacaala uuna qaato casrigan maanta balse haddaynu nahay rag islaam ah waa inaynu mar kasta aynu soo nooleynaa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaan aynu ku dayanaa sifooyinkii uu samayn jiray waa haddaynu xabiibkeena jecelnahee isug intaanan fideoga ka bixin waxaaban ilaawi gaaray arrintii ugu muhiimsaneyd ee aan islahaa kula wadaag dadka islaamka ah waa arrin yar oo marka dhinac loo eego lagu qoslayo balse aan qosol gelin run ahaantii oo aynu dhammaantiin wada mooganahay haddaba waxaan la hadlayaa inamada dhexda ama halka dhiida loo yaqaano iska xidha ee mooda isteel talo ma ogyihiin dhex iska xidhkan asalkiisu wuxuu yahay haddaba aan kuu sheegay dhex iska xidhka asalkiisu wuxuu yahay markii la joogay cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku gaaladii oo dhan ee cashuurta laga wada qaadi jiray wuxuu dhexda kaga wada xidhay suun weyn si loo garto mid kasta oo gaal ah sidoo kalena cashuurta bixinaya
haddaba inagu maanta way inoo bedeleen oo waxay casri ka dhigeen in dhexdii la iska xidho inagina casri ayaynu u qaadanay haddaba barnaamijkan sii faafi si wacyigelintan ay dad badan u gaadho intaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijkeena maanta waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh